بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa raxmaan axmed warsame ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada burco halkan waxaan ka salaamayaa dhammaanba ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha xalaasha ee ummadda soomaaliyeed ee ku yimid rabitaanka shacabka maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaan leeyahay ilaahay ha kaa dhigo midan shacabka soomaaliyeed ku hungoobin waxaan doonayaa halkan inaan kaga hadlo xadhigii walaalkay cali dhanaaniyo iyo maxamed galeeriyo sidoo kale cabdimaag muuse caldoon labada abwaane dhalinyarada ku xidhan magaalada burco iyo sidoo kale cabdimaalig oo ku xidhan magaalada hargeysa waxaan isweydiiyey in badan maxaa lagu xidhay maxay kasbadeen ma kiis qaran bay galeen ma garanayo su'aalahaas oo dhan baa iswada weydiiyey markaa maanso la yidhaahdo caru noqo ayaan ku cabirayaa dareenkayga maansada caru noqo ereyga caru noqo waalidku markay matalan ba haddaan idin safiro dadka soomaaliyeed qofkan fahmayn ereygaas markuu qofka yar dambi galo waa la dhangadeeyaa deedna caru noqo waxaa hebel baa la yidhahdaa deedna qofka yar wixii siduu kaga caagaa markaa waxaan leeyahay cabdimaalig muuse caldoon iyo cali dhanaaniyo iyo maxamed galeer waariyaan caru noqodaas idinku dhicino bal hadhow kolay jeelka haddii ilaahay idinka soo furto iyaydaan noqonin dad intay cabsoodeen hankoodii iyo himiladoodii iyo rajadoodu ay hoos u dhacdayo mar walba lagu xuuxiyo xabsi oo la yidhaahdo caru noqda waxaa haddii kale meeshii baa ku noqonaysaan noqda dad ka run sheega fikirkooda dad waxa maskaxdooda ku soo dhaca ee wanaaga ah ama wixii xornimo ay kaga hadli karaan ama si kasta oo xorriyadooda inay ku hadlaan oo aanay noqon dad ka cabsada jeel iyo cunaqabatayn iyo xadhig toonna markaa maansida caru noqo waxay ku bilaamaysaa nimaan ciidda hooyiyo carriguu ku ababiyo ka dhex tagin ciddiisii hadal lagu cidhiishiyo haddii uu caburiniyo fikir lagu canaadiyo caqli laga gumaystiyo uu ku jiro calooliyow ka tahriibay ha u caban oo ha odhan dee muxuu u tahriibay qofkaas waayo hadduu qofka xorriyad wida uu tahriibaya suu doonu yeelaya kii ka tahriibay ha u caban kii cararay ha u didin kii cid mooday yurubee ciirsaday talyaaniga caqli xume ha moodina baddu kay cunaysee ku cashaysay haadiyo u garaabay kii cadow cidlo dhexe ku helayoo ma canaananaye caku toban isciishaay cadowgeed ma garatoy caqli gaabyo badanay gaala calanka saaraay shisheeyaha oo cararaay iyaduna isciilaay soomaalay cawaanay caqli gaabyo badanay caqli kama kortaa tahay qabiil caabudaa tahay curadkii ka soo baxa cunaqabata saaraay kii caawin laa iyo halyeygeeda ciilaay caruuraan korayno xinka caadow lahay caawiyaha ilaahay cadowgaa ha jabiyo ciidan samada laga diray carrigaaga horumari oo kale dee ilaahay wax kuu soo diro waan leeyahay soomaalida ilaahay waxaan uga baryaa inuu u soo diro ciidan uu samada uga soo diray oo xoreysa oo midaysa oo hagaajiya oo ilaahay ha ka dhex saaro cadowgooda maalinba qaar la shiraya ee maalinba mid meel geenaya ee dhaqamada sida aadka u foosha xun ku samaynaya ee aanay iska garanayn ilaahay ha ka saaraan leeyahay codka kale waxaan idhi curadada dalkaygow geesiyada cajiibkow afka ciidankoodow kuwan caasin dhaqanka suugaanta curiyow halkaa waxaan kula hadlayaa abwaanadii dhalinyarada ahaayee markaa suugaanta curin jiray ee abwaanada ahaayee aan dhegeysan jirnay maasooyinkooda kuwan caasin dhaqankee suugaanta curiyow abwaan cali dhanaanshiyo ha u caban gallaydhow waayaha cakirano ha u caban gallaydhow waayaha cakirano maskax caafimaad liyo caqligii fayoobaa cabsi ha u bedelinin war ha cabsaninoo ha buqinine caqligii fayoobiya maskaxdii caafimaadka qabtay ku shaqeeya madaxweyne caaniyo cuqaal loo hanweyn yahay adigaa ka calan dheer kumankays cajabiyee caaqilada isfidayee caawiyaha miskiinkow coldoonow ha ciishoon fikir caafimaad